المسلم maalmahan waxaan ku xusuusinayaa qorshe iyo barnaamij aad kaga faa'iideysan karto. waa qodobka koobaad tobankan maalmood ee bishan u horeeya dilxija marnaba ha ilaabin hana mooganaan labada ragcadood ee la tukado waqtiga barqada. haddaad ka badisana fa huwa alafdal. ha ilaabin laba ragcadood oo aad tukato fii waqti saxar marka uu waagu soo dhow yahay. ha ilaabin rawaatibta 12 ragcadood ama ka badanba oo salaadaha faralka ka horeeya qaarna ay ka dambeeyaan. labada ragcadood salaada subax ka horeeya, afar salaada duhur ka horeeya, laba ka dambeeya, laba salaada maghrib ka dambeeya iyo laba salaada cishaa ka dambeeya. ku dadaal inaad soonto 9 maalmood ee bishan u horeeya. si gaarana u beegso maalinta carafa soomkeeda. yaanu ku dhaafin siyaamu yawmi carafa fa inna fadlahu wallahi cadiim waman faatahu fa huwa fi khasaara. maalinkaa soomkiisa fadliga laga hela aad buu weyn yahay, qofka u dhaafana waa qof aad u khasaaray. akthir yaa cabdallahi min dikri illaah. ilaahay baa si gaara ku amray maalmahan inaad xusto. ilaahay xusuusnaantiisa iyo xusitaankiisa iyo weynayntiisa iyo ammaanistiisa farabadi. laa takfal can sadaqa tufrixu biha muxtaaja. tobankaa maalmood ba inaad sadaqad la baxda ku dadaal, aad kaga farxiso qof baahan. fainahaa tudfiu gadaba rabbi subxaanahu wa tacaala. ilaahay cadhadiisay kaa baktiinaysaa sida uu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam. raadka ka dhasho oo naarta inay baktiiso. afdir saa'iman fii yawmi carafa aw fii gayrihi min hadihi alayaam. waynu aragnay dadku say ugu dadaalaan inay cid afursiiyaan bisha ramadaan, laakiin maalmahan dadka soomana fursiintooda dadka badankoodu waa moogan yihiin. ka faa'iidayso fursadda. camalka wanaagsana dadku ay moogan yihiin fadli dheeraada buu yeelanaya. ugu yaraan hal qof inaad afursiiso oo soomay maalmahan ku dadaal. ixris cala alkalaam alladii tarjuu bihi thawaab allah waskut can gayrih. ku dadaal hadalkaad is leedahay ilaahay baad agtiisa wax kaga heli doontaa oo darajo ku yeelan doontaa oo sabab uu noqon doona ilaahay raalli inuu kaa noqdo jannadaad gasho. ka kalena iskaga aamus. faqad qaala lanaa rabbuna subxaanah laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas. hadalka ay dadu ku wada hadlayaan shirarkooda iyo faqoodu khayr ma leh saddexdaa arrimood haddaan lagu hayn. haddaan sadaqad la ysku farahayn, haddaan dad lagu heshiisiinahayn, haddaan wanaag la ysku farahayn oo la ysugu sheegahayn. dadka ka agdhow laga bilaabo ehelkaaga iyo awlaadaada iyo asxaabtaada ku baraaruji fadliga maalmahan ay leeyihiin. ama fariin u dir, ama telefoon u dir, ama afkaba uga sheeg. walaka fi dalika bishaaratun cadiima bashara biha muxammadun rasuulu llah. arrinta noocaasa bishaaro weyn baad ku heli doontaa oo muxamed oo rasuulka ilaahay ay kuugu bushaareeyey xayثu qaal calayhi salaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilih. qofka khayrka dadka tusee u tilmaamaa xagga ajarka wuxuu la mid yahay kii sameeyey. mid kastoo maalmahan aad ku baraarujiso oo camal wanaagsan sameeya fadliga uu ka helay mid la-eg baad adiguna ka helaysaa iyadoo waxba adigana aan lagaa nuqsaamin. weliba arrinka noocaasi wuxuu sii adkaanayaa cibaad allah marka uu xaalku yahay siduu maanta yahay oo dadka badankoodu maalmahan ay yihiin gaafiluuna canha aw mucriduuna can alijtihaadi cala طaacaati fiiha. dadka badankoodu maalmahan ay moogan yihiin ama iyagoo maqlay
ay yihiin kuwa ka sii jeeda oon u soo jeedin inay ku dadaalaan daacaadka iyo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala u dhoweynaya. ayuha alcabdu lmuslim, maalmaha waxaad ku dadaashaa akhrinta qur'aanka, fahuwa afdalu maa yudkaru bihi rabbu subxaanahu wa tacaala. wax ilaahay lagu xuso waxaa u fadli badan in ilaahay hadalkiisa la akhriyo. ku dadaal maalin walba inaad akhrido 3 juz ugu yaraan si aad 10 maalmood qur-aanka u khatinto. 3 juz haddaanad hal waqti wada akhrin karin waad qaybin kartaa. bacda salaati alfajri hal juz akhri, bacda salaati bayna almaqrib waalcishaa, maqrib iyo cishaa inta udhaxaysana juz kala akhri, bacda salaati duhri aw alcishaana juz kala akhri. ma ashalaha wama afdalaha, waa arrin aad u sahlan, isla markaa fadligeeduna aad iyo aad u weyn yahay. wakhtiyada qaarkood si gaara uga faa'iidayso. salaada subax dabadeed iyo salaada subax horteed iyo maqrib iyo cishaa inta udhaxaysa oo kaga faa'iidaysa khayrkii waxa ilaahay kuu dhoweynaya. guud ahaan ku dadaal istikfaarta, farabadii u samafalka waalidka, xidhiidhinta qaraabadaada, badinta salaanta, dadka baahan quudintooda, dadka ishaysta heshiisiintooda, wanaag farista iyo xumaan reebista, carabkaaga ilaali, jaarka u samafal, martida si fiican u sooriyee, waxa dadka dhibaya waddada ka leexi. anfiq calaa zawjika wa ciyaalik, cidda ilaahay arrinkooda iyo taladooda ku dhiibay maalmahan ka farxi oo masruuf ku filan sii, agoon wax sii, walaal ilaahay daraaddii aad u walaalowdeen booqo, kuwa xanuunada u jiifa iyagana booqo. ku dadaal salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam, fa innahu min afdali alcibaadaat, nebiga inaad ku sallido. qof muumina ha dhibin, walaalahaaga u ducee iyagoo kaa maqan, malag baa ku odhan doona walaka midlu dalik, taasoo kalead adiguna ku heli doontaa. ammaanada ilaali, ballankana ka soo bax, indhahaaga xaaraanta ka laab, waysada dhammaystir, masaajidka xaggiisa u lugee, tallaabana ajar baa lagugu qori, midna dembi baa lagaaga dhaafi doonaa. aadaanka iyo iqaamada inta udhaxaysa ducayso. yowm aljumuca suurat lkahf akhri, ajar weyn baad yowma alqiyaama ku heli doontaa. salaat lciid ku dadaal, ixris calaa adaa'i salaati alciidi fi lmusallaa. ku dadaal dikriga ilaahay salaadaha dabadood, oo dadka masaajidka markiiba ka cararaha ka mid noqonin. ka farxi dadka muslimiinta, gaar ahaan kuwa taagta daran iyo kuwa baahan. laabtaada xaadh oo ka xaadh xumaan iyo colaad iyo qalbi xumo wixii aad ugu hayso qof muslima oon ilaahay daraaddii ahayn, ee ka dhashay dheefta nafta iyo adduunyo. ehelkaaga wanaagga bar, kuna baraaruji. fursad kasta oo khayr oo ku soo martaa ka faa'iidayso. bal istanic anta furas alkhayr, ku dadaal adigu fursadaha khayrka inaad abuurto, inaad samaysato. ku dadaal oo fursadaha lagu sheegayo kuwa aan ahayn adigu waqtigaaga inaad ka soo saarto ood ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaato. nas'alu allaha subxaana wa tacaala an yuwafiqana lidalik wayuyasira lana sabiilah وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات